وكما أحمد رشيد أنت بدن صوماليدا كنول إسلي iyo Bangani ayaan ka warqabin sirta gacan ku dhig Axmed Rashiid waxa uu difaaci jiray qowlaysatada Soomaaliyeed kuwa daroogada ka ganacsada mukhalasiinta iyo dhalinyarada ONLF gacan ku dhig Axmed Rashiid ayaa dilay in ka badan 100 dhalinyaro ah waxa uu ku dhaqaaqay danta qabiilkiisa Ogaadeniya Axmed Rashiid iyo waaya aragnimada Isli dilalka sharciga ka baxsan waayitaan xoog ah dambiyada ka dhan ah aadanaha cagajugleynta markhaatiyaasha baad Soomaalida oo kaliya ah ku shaqeynta bilaalo markaadeega booliiska in ka badan 100 dil dhig yacab dumar ku xadgudba Soomaalida ma taqaanaa Luna Bag Bangani oo ah xarunta suuqgeynta Soomaalida kuwa daroogada ka ganacsada iyo kuwa wax taariibiya goobta waxa ilaalinaya bilayska dilaaga Axmed Rashiid ah si uu u helo faa'iido dhaqaale Luna Bag waxay ahayd meel ay Soomaalida iyo Carabtu u aadi jireen maaweelo daroogo khamri cabid ilaysi aan gaar ahayn iyo cabista shiishada meeshu waxay shaqeynaysaa habeenkii oo kaliya si loo qariyo iyo waxa la siiyay oo ah lacag ilaalin sharci darro ah waa maxay sababta Luna Bag Bangani u hawl gasho habeenkii Axmed Rashiid waxa uu inta badan shaqeeyaa fiidkiisa uu goobta ugu qariyo dadka aan Soomaalida ahayn Axmed Rashiid waxa uu sabab u ahaa dambiyada yaryar iyo balwadaha ka dhaca xaafadaha Isli iyadoo la ilaalin jiray dadka Soomaaliyeed ee ka ganacsada daroogada mukhalasiinta iyo kaartalka Luna Bag Bangani waxa ay xarunta iyo meelaha sirta ah ee ay Soomaalida iyo Carabtu u aadi jireen maaweelada iyo daroogada xilliga habeenkii